السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhowaada tirsiga kan cusub kuna saabsan muujinta asbaabta ama sababta guud ahaaneed ee koowaad ee dowladda Itoobiya ugu wado xaaladda daandaansiga ah Soomaaliya. arrinkaas isaga ah waa mid aan ka akhrisan karno daawada dhegayste haddii aan dhegaysanay hadalkii ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, halkaasoo uu hadalkaas ka jeediyey shirkii baarlamaanka ee Itoobiya ee dhowaan qabsoomay maalmo ka hor. jeedintaas iyada uu goobtaas iyada ee tilmaaman ka jeediyey waxaa laga akhrisan karaa, laga milicsan karaa baaqa iyo baaswoorka iyo kelmata sirta oo guud ahaan lagu soo koobi karo oraahda ah sirta ka dambaysa cagajuglaynta iyo damaaciga iyo xadgudubka ee dowladda Itoobiya wado ee ka dhanka ah Soomaaliya ama guud ahaan gobolka, iyadoo uu arrinkaas u saameeyo dalka Eritrea iyo Jabuutiba si toosa iyo si dadbanba. baaqaas iyo baaswoorkaas iyo sirtaas iyada ah laga milicsan karo hadal ka soo yeedhay Abiy Ahmed oo ahaa waxaan rabnaa inaan la dagaalanno Xuutiyiinta oo ku sugan Yaman. Itoobiya iyo Yamanna laba dal juqraafik ahaan xad u dhaxeeyo maaha, isla mar ahaanta masaafo dheer u dhaxayso oo una u dhaxeeyo dalka Eritrea gaar ahaan iyo badda cas, labadaasoo ay kaga gudban yihiin Itoobiya dalka Yaman. balse oraahdaas iyada ah waxay muujinaysaa oo turjumaysaa Itoobiya inay u hanqaltaagayso inay ciyaarto kaalin heer goboleed, kaalin goboleed inay ka ciyaarto geeska Afrika iyo badda cas iyo koonfurta jasiiradda Carbeed, oo ay noqoto mid u barbar dhigmata Israa'iil oo ah quwad goboleed. labada quwadoodna ujeeddadoodu ay tahay layskuna og yahay inay ciyaaraan midna aagga waqooyi ee badda cas, halkaas isaga ah uu wax ka kaantaroolo uu ka farsameeyo, kan kalena aagga koonfureed ee badda cas. marka arrinkaas loo fiirsadona run ahaantii oo la milicsado sooyaalka xabashida ama Itoobiya ee kuba dhismatay, waxaa la oran karaa inuu muuqaalkaas isaga ah inay Itoobiya noqoto quwad goboleed ay ku dhismatay ase dowlad ahaan, state ahaan. arrinkaasna uu muujiyey shirkii 1884 ee Berlin oo Itoobiya ay xubin ka ahayd, xubinta kaliya ee qalaad ee aan Yurubiyaanka ahayn oo Afrikaanka ah. ay dowladahaas iyaga ah ee ku bahoobay inay qaybsadaan oo gumaystaan Afrika iyo Asia ay qayb ka qaadatay, qaybteeduna noqotay
ciidda Soomaaliyeed iyo Jabuuti iyo ummadihii bariga Afrika oo markaa ka baxsanaa dowladda Ethiopia ama State of Ethiopia oo ay ka mid yihiin Oromada iyo shucuubta koonfureed maanta la yiraahdo Ethiopia iyo Cafarta iyo Benishangul iyo Gumuz oo labaduba ka soo jeeda Suudaanta intaan Suudaan laba dal u qaybsamin ay Ethiopia macnihii saami u yeelatay dalalkaas iyaga iyo ummadahaas iyo nationadaas iyaga waana muuqaalkii ee ku asaasmatay oo ku dhismatay Ethiopia 1916 gaar ah maanta arrinka dowladdaas wadato ee uu horkacayo Abiy Ahmed waa muuqaalkii isaga ahaa oo ay saamayso ama lagu qotomin karo oraahda ah ku qabso qadimayside ee ku qabso run ahaantii waa istiraatiijiyadaas iyada atay dowladda Ethiopia ka duulaysaa maanta run ahaantiina kaadhkaas marka loo fiirsado waa kaadh wax lagu xoqan karo oo gadmi kara waayahanna ay Ethiopia ku shaqaysato gaar ahaan intii uu hoggaanka iyo maamulka dalkaas isaga ah garwadeen ka noqday Abiy Ahmed markaas yaynan yaraysanin yaynan dhaliilsanin yaynan fududaysanin aragtida iyo kaalinta iyo rabitaanka Ethiopia halka uu ku socdo oo ah inay noqoto quwad goboleed arrinkaasuna uu yahay mid ka duulaya aragti dheer oo ku salaysan damaaci la soo tijaabiyey oo hore u madha dhalay maantana la rabo in la dhammaystiro oo halkii laga sii wado run ahaantiina oo arrinkaasu noqonayo mid ay Ethiopia ku badbaado oo wax ku maasho jiritaankeeda siyaasadeedna ay ku dheeraysato iyo jiritaanka hoggaanka siyaasadeed ee Ethiopia maanta ka taliya ee ah Abiy Ahmed nuxurka buuqaas isaga ah iyo xadgudubkaas lidka ku ah maanta Soomaaliya bartaas iyada iyo muuqaalkaas isaga ah iyo ujeedadaas ayuu ka duulayaa Ethiopia waxay rabtaa inay wax ku gorgortanto Soomaaliya ku gorgoranto iyo Jabuuti iyo Eritrea iyadoo u maraysa halkaas iyada arrinka Xuutiyiinta marka caqli ahaan loo fiirsado ama runta loo soo noqdo la oran karo wax iska galay Yemen ama Xuutiyiin iyo Ethiopia ma jiraan kooxdaas iyada ah iyo Yemen guud ahaanna colaad siyaasadeed iyo khatar iyo weerar ay ku hayaan Ethiopia ma jirto markaas Ethiopia iyada bilcagsiya oo u socota weerarka iyadoo ka duulaysa inay manaafacaad siyaasadeed iyo dhaqaale iyo ciidan halkaas kaga faa'iido arrinkaasuna waa arrin ay muddo dheer sanadahan dambe Ethiopia qorsheynaysay lagana garto inay u diyaar garowday oo ka shaqeynaysay iyadoo ciidamo u tababaratay badeed
dalkeeda gudaheeda hadday noqoto oo lagu tababaray sida magaalada Baxardaar oo kale, iyo hadday noqoto Talyaaniga iyo Faransiiska, iyadoo halkaasna ka heshay agab ciidan military oo badeed. marka arrinkaasu yahay arrin istiraatiijiyadeed oo Itoobiya rabtaa inay ku noqoto quwad goboleed, arrinkaasuna uu gunaanadkii noqon karo mid dhaqaalaheeda iyo siyaasadeedaba kobciya oo ka dhiga quwad goboleed oo una saamaxa oo u fududeeya arrinkii dhul ballaarsiga ee had iyo jeer ee Itoobiya maali jirtay. daawade dhegayste waa anigoo ah Khalid Xasan Yuusuf. intaan ku kulmi doono barnaamij kale. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.